السلام عليكم ورحمة الله. ساكي فيديو كان وحو كسابسان يحيى محال دها steroid steroid مر بدنا اشي وصل الله وتي steroid محاويان يا استعمالي كروي محي فائدة لهي ان كبر ددك استعماله ولي من استعمال شيء اوكي فيديو كان ايك هادلي دونا horta steroid waxa waaye drugs waa daroogadaas oo loo isticmaalo waxyaalo badan laakiin hadda waqtigan waxa ka hadli doon waxa waaye jirka sida dadku u isticmaalaan steroidka laba nooc loo qaybiyaa waa mid dadka la isku duro iyo mid kaniini caadi loo laqo waxay caawisaa qofka inuu murqo yeesho jirkiisu weynaado midda kale steroidka waxay qabataa hawshii 10 sano ku qaban lahayd ayay sanad ku qabataa waxa waaye cirbad la isku duro jirka hal mar murqo yeelaysa waqti yar gudaheeda jirka uu ku weynaanayo marka wax walba si fudud ku yimaada si fudud ay ku baxaan steroidka maxay dhibaato leedahay ka horeysa intaadan wax aadan isticmaalin waxa la ogaadaa faa'iidada iyo natiijada maxaa ka imaan kara mustaqbalka dhow steroidka adduunka idil waa illegal wadan legal ka tahay oo la ogol yahay ma jirto adduunka wadan walba qofka lagu qabto sanada ayuu xirag cunayaa ama lacag badan ayuu bixinayaa haddii steroid lagu qabta ogaaw inaad xirag diyaar u tahay steroidka waxaa isticmaalo dadka bodybuilderada jirka dhisa badankood boqolkiiba 95 way isticmaalaan waxaa jira documentary la dhaho maxaa la dhahaa strong faster waxtaas amal waa helmaan magaciisa waxaa u maleynayaa inuu yahay nin la dhaho Mark Bell nin la dhahay iskale documentarygaas wuxuu ka sheekeynayaa daroogada iyo sports waqtigan jira daroogada waxaa ka wadaa steroidka wuxuu dhahay nin aan isticmaalin oo steroid ma jiro oo professional ah hadday ahaato kubadda hadday ahaato basketball hadday ahaato maxaa la dhahaa bodybuildernimada hadday ahaato magaciisi kala ciyaaro golf waxaasoo idil way qaataan uu yiri documentaryga haddaad daawatid waa si fiican ay u fahmi doontaa haddaad ku qortid bas Mark Bell steroid haddaa YouTube ku qorto arkaysaa waa documentary hal saacad soconaya interviewgiisa maalin dhaxaysa daawanay wuxuu ka sheekeynayay dhibaatada ay leedahay side effects maxaa dhibaato ka imaan karta marka dhibaatooyinka steroidka aad ay u badan yihiin laakiin inta ugu badan ee ku dhaca dadka waxa weeyaan in qofka mataqaanaa kiliyaha iyo wadnaha dhibaato u keento waqtiga dhow gudihiisa inkastoo haddii micnihiisa dadku ay dhahaan haddii micnihii dhakhtar uu kusoo qoro dhakhtar waxaa jira micnihii dadku u qoro inta loogu talagalay dosajyada ku qoraya haddii uu kusoo qoro wax walbana la socotid dhibaato ma kaaga imaanayso sababtoo ah dadka badankiisa bodybuilderada badankood way sameeyaan laakiin dhakhtara ayay leeyihiin ragga qof normal anagoo kale ah aan dhakhtar gooni lahayn kilihiisa la socon wadnihiisa la soconin way adag tahay inuu micnihii steroid qaato labo steroidka marka iska dhaaftid jirkaaga uu ka baxo murqahaaga waxay noqonayaan baruur zero ayay noqonayaan hadda aragtid ninka la dhaho Arnold Schwarzenegger filimaanta commando ninka jile hadda aragtid jirkiisa waa yaabaysaa waa baruur meel walba sababtoo ah cirbad uu qaadan jira jirkiisa ka maqan cirbadahaas marka daa joojisid dhibaato ayay kaaga imaanaysa nin hadda gymkan meeshan joogi jira gymka ku almeetay joogi jira oo wadamadan Faransa kasoo jeeda madowga ayaa mar dhaxal sheekaysanayno igu sheekeynay steroidka asay marka bodybuilder wani zaid weyn macnay tartamo dadka tartamo waa ilaa 12 sano tartamay ugu dhahay uu sheegay dhibaatada ay leedahay hadaa qaadan kartid markaas wuxuu dhahay ma laga yaabo in steroid qaadatid markuu dhibaatooyin dhan ii sheegay markaas waxa dhahay macnihii halaano dhibaato ayadoo leh haddana sababta oo qaadanaya maxay tahay markuu wuxuu yiri aadan rabin mustaqbalka inaa qof inta la egno weynin badan macnihii oo bodybuilder inuu noqdo rabin ma u baahnid inaad steroid qaadatid jirkaaga natural ayaa murqo ku dhisan kartaa midda kale dadka badankood ku daysano ama macnihii wax inaan ka baran rabno kulligood steroid ay qaataan waa been natural ay ku leeyihiin droogo ma qaadana jirkeena ku leeyihiin laakiin waa kulligood way qaataan laakiin waa naga qarinayaan dadka hadda badankood almeetaya haddaa weydiisid Simeon Panda haddaa weydiisid ama Laser Angel haddaa weydiisid way yaqaanaan kulligood waa dadka adduunka physique hadda ugu wanaagsan jirkooda laakiin natural ma aha waxa la sameyn karnaa jirto jirka bilaadanka website jira xataa lagu ogaan karo jirka bilaadanka xadka uu murqo dhisi karo hadda YouTube ama Google qorto waxay leeyahay dadkaas macnaheedu jirka bilaadanka hal sano full ah qofka bilaadanka jirkiisa lean ma ahaan karo lean waxa ka wada asoo idil inuu gogo
oo hilibka jirkiisa ku jiro 5% ama 4% u tago sanad idil jirkiisa ma ahaan karo sababtoo ah jirka bini'aadamka intaa looguma talagalin laakiin raggaa sidaas waa sanadkii idil marka arag jirkooda sidaas u egyahay sababtoo ah darooga ay isticmaalaan tusaale ahaan hadda Les Angeles ninka la dhaho ma necban xumaan uma qabo waxa wax ka sheegay ma wax dhaba dhalinyartina u sheegaano haddii aan malaynaysid jirkaas in natural lagu gaari karayo ina ogaatid waxa dadkan ay qaadanayaan daroogoyn ay qaataan protein shake bas u qastaa iyo creatine oo cabaaya murqiisa aragto no protein shake iyo creatine haddii la qasanayo dadku idil saas aan lahayn qofa cabin ma jiro protein aniga waa cabo adiga waa cabtaa maxaa jirkaas oo kale u yeelan laadahay waqtiga qaadanaysa waa la ogyahay in jirkaaga dhismo laakiin haddana waxaa muhiim ah inaad ogaatid dadkan maxay jirkooda ku durayaan maxay qaadanayaan ninkaas hadda meeqa sanadkii lasoo dhaafo idin mutreenaynin dhakhtar uu ku jiro maalin walba hore iyo gadaal dhakhtar ugu socdo kulligood waa sidaas Ronnie Coleman haddaad taqaanid waa ninka adduunka wuxuu qaatay 8 mar ayuu ku guuleystay ninka adduunka ugu dhisan ugu weyn hadda eeg dhakhtar uu ku jiraa maxaa keenaya daroogada soo daroogooyinkaas aan qaadanayno wadnaheen effect u leedahay keliyaha effect u leedahay jirkaaga hadhow wax uu bilaabay inaad sheeg garaysid oo macnaheedu marka daroogada ka bax jirkaaga wixii uu bartuuro ma daran soo marka steroid waa sheekayna hadda dhahno waxay qaadanaysaa waqti badan haddii aad rabtid inaad ogaatid qofku aad weydiin karto qofka isticmaal weydii haddii aadan aqoonin qofka isticmaalin YouTube waa ka helay dad badan joogo isticmaaleen ka sheekeynaya ha weydiin qof macnaheedu hadeertan isticmaalay oo ku dhahay waa isticmaala laakiin way wanaagsan dad ku dhaw qofka dhageysan ilaa sababtoo aan wax hadda sameynayo way xuntaa qof ma dhahay laakiin haddii macnaheedu inaad ogaato rabtid waxaad weydiisaa qofkii isticmaalay dhibaatooyinka leedahay wixii yihiin soo arka marka video ma dheereenay dhalinyarta isoo weydiisay please inta steroid waxaas aadan ku fikirin horta jirkaaga at least natural ha ku dhismo at least marka jirkaaga dhahayd natural waa dhisanahay maanta meesha waa joogaa markaas ku fikir inaa macnaheedu meel kale gaarto laakiin haddaadanba hadeertan aan jirkaaga is leedahay wax badanaa ku dhiman muuqihii aarabi maana dhisin aan steroid ku fikiraysid waxaa ku dhihi lahaa macnaheedu waxaa ka boodaysaa jaranjarooyin badan dugsiga hoose markii laga bilaabo dhaxaa la gaara dugsiga sare jaamacad saasa loo aadaa laakiin adoo dugsiga hoose joogo ayaa waxaa ku fikiraysaa inaad jaamacad hore gaartid jaamacadan waa steroid wax ka dambeeya ma laha qofka hadduu steroid qaato daroogu dhimo mala jirkiisa oo dhisaysa haddii marka aad ku fikiraysid inaa waxaas qaadatid at least baro waxay tahay faa'iidada leedahay baro khasaarada leedahay baro markaas kadib ku fikir adigu aan qaado marka video ma dheerana insha Allah channelka hadda ku cusubtahay waxa la sameeyaa waa taqaanaa subscribe like asxaabtan la wadaag peace out